daawadayaal ninkan waxa lagu magacaabaa Saddam al-Cisi waa nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalkaas Yemen waa nin YouTuber ah ninkan Yemeniga ah ayaa inta badan muuqaalada uu soo geliyo bartiisa YouTube Saddam al-Cisi inta badan waxa uu ku soo bandhigaa waxyaabo kala duwan oo la xiriira shakhsiyaadka sameeya indhasaracaadka ama sixirka ee ku kala firqsan daafaha caalamka ninkan Saddam al-Cisi runtii wuxuu mar walba daba dhigtaa muuqaalada ay sameeyaan dadka sixirowlayaasha ah ama dadka indhasaracaadka bulshada ku sameeya misana runta ka dhiga ayuu ninkan Saddam fashiliyaa oo dibadda soo dhiga in calaashan nimankan sixiriinta ah ama indhasaracaadka sameynaya waxay sameynayaan in ay u isticmaalaan xirfad heer sareysa oo aanay badanku dadku fahmaynin ayuu ninkan Saddam al-Cisi isagu dibadda soo dhigaya Saddam marka ugu horeysa waxa uu isku day doonaa sidii uu u fashilin lahaa ninkan saaxirka xirfadda iyo indhasaracaadka uu sameynayo uu soo bandhigi lahaa dadka iyadoo xaqiiqo ah iyo qaabka uu sameynayo ee dadka ku marin habaabiyay ninkan shaarka huruuda xiran ee darkaysan daawadayaal waa nin u dhashay dalkaasi Japan waa nin indhasaracaadka ku talax tagay guud ahaanba dunida oo dhan waxyaabaha uu sameynayo xataa adiga laftirkaaga ayaa aad uga argagaxaya markaad daawanayso ninkan waxa uu ka qayb galayay barnaamijka America Got Talent baleeg muuqaalada uu sameynayo afkiisa ayuu ka soo saaraya sakiin afka ka soo saaraya moodaa ninkani saaxirka ah ama indhasaracaadka sameynaya daawada saad arkaysaan wuxuu calanayaa sakiin iyo waxyaabo kala duwan oo aan macquul ahayn oo aad ka argagaxayso markaad daawanayso mar uu bibi uu afka geliyo oo uu afkiisa ka soo saaro calaashan ninkan dee waa wax aan innaba caadi ahayn ayuu sameynayaa ninkaasi bal waxaynu eegi doonaa muuqaalada ay kala duwan ee aad daawateen ninkani oo uu fashilnayo ninkan la yiraahdo Saddam al-Cisi bal Saddam baynu eegi doonaa bal isagana qaabka uu fashilayo يكون لون الخيط مشابه للون الشراب ومشابه أيضا للون القميص الذي يرتديه الساحر، وذلك حتى لا يرى أحد الخيط أثناء صب الشراب. تستطيع أن تروا هنا الحلقة التي كانت تمسك بالخيط.
قد تتساءل الآن، إذا كان الساحر قام بقذف الشفرات من فمه إلى الكأس، فمن أين جاءت هذه الشفرات التي أخرجها من فمه؟ هذه الشفرات يا صديقي هي شفرات تم تجهيزها وربطها مسبقا، وهي خاصة بالسحرة، حيث يقوم الساحر بوضعها على فمه من الجهة اليمنى والإبقاء عليها في هذا المكان طوال الوقت. ولو دققتم قليلا في هذا المشهد ستلاحظوا أن جزء من هذه الشفرات ظهرت داخل فمه، وطبعا عندما يريد إخراجها يقوم بنقلها إلى وسط لسانه وسحب الخيط الذي عليها. runaantii daawadayaal wiilkan reer Yamani wuxuu runtii yani xirfad ayaa la oran karaa ayuu leeyahay qaabka yani loo fashiliyo dadka yani bulshada ku maran habaabinaya waxyaabaha aan yani macquulka ahayn ayuu ninkan Saddam al-Cishi aad ugu tagay sidii uu dibadda u soo dhigi lahaa oo uga dhigi lahaa waxba kama jiraan aan sal iyo raad lahayn oo been la dhoodhoobay ay tahay.